madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi kale oo hogaaminaya ayaa subaxnimadii saaka u kicitimay dalka Djibouti si ay uga qayb galaan wadahadalada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya waxaana warbaahinta uga warbixiyay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon waxaana hadaladiisa ka mid ahaa soo taagay inaan idin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waftigaas wuxuu baxayaa dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan Ismaaciil oo ah la taliye xagga aqoonsiraadka jamhuuriyadda Somaliland waftigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dawladda ama dalka Ethiopia waftigaas waxa la isugu keenayaa Somaliland iyo Soomaaliya ujeedada shirku waa intaas ajandihiisa iyo waxa laga wada hadli doono iyo arrimahaasu de marka la isu tago baa laga wada hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha Allahna waxaanu rajaynaynaa inuu